ciidamada tababarka lankofuy degmada Wallaweyn gobolka Shabeellaha Hoose yaa lagu faday inay nagadan ciidamo ku tirsan ciidanka daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya ciidanku yaa sidaas oo kale way baa sugu doonaan ammaanka guud ee degmada Wallaweyn iyo deegaanada hoos ku ayaan diiwaangelinta iyo tababarka furitaanshi yaa way baa qayb galay wasiir ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya saraakiil ku darartay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya مسؤولينته وقيب قلي يوي بشالينا وزير كأرهمو جودة دولة هاسكرين هديسيوك محمد أبو بكر محمد وزير كأمني جودها إسحاق علي الصبغ وزير كمالية أحمد محمد حسين وزير كدكدا عمر أحمد إنو وزير كهجين كالوميسك محمد معلن ترافيكو وزير كهجين كجسور عبد الوهاب حلبان قاسم محمد أبو بكر iyo taliyaha daraawiishka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Yunus Xasan Aadan way baan meeliyada ku hadlay qaar ka mid ah walgorodka iyo wasiir ku dheer dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo meel ka suganay aan ku horeey way baan meel ku hadlay taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Yunus Xasan Aadan وليتنا إيدن ديجان كيا إيدن صومالية ده إيدن دولة قبلات كيا أو دراوشة لانكي لهاي مرتي هر سراي قبيلة تا أرجع من كاكين يالا سراي جيت أنت هو لسين كترسل لسين كلوري ولا نقدر سنا إيدن دولة نقدر سنا إيدن كي دولة قبلات كي كونفور قبلات تي دراوشة ميلتك ميلن لكوبي أو واي بوا لكن سابتمو ديار نجين أردن تي دولة لسين لوري أقدر سين كيس سابتم ديار نجينا إذا ما سنتي إذا سؤال كلاوي بميلك وهذا وزير كهيان كالوميسك محمد معلن ترافيكو أو كدراري أهميد يعيد بدون أن لين ديجانك السجاي رواي دارا إلهي وقتنا نصيبك إلهي كلك دولة دين كوفر قلبات صوت وياسين وفد سين لتسين صوت وسير دين هلبان دين طبعا سين صعدا مداوينها كوفر قلبات ودنا عبد العزيز حسن محمد لفت قرين وقلت من فرت سلام همية معنا سين سلام موايا إن دلكين إدتكين الدينتين الدمتا سين قرب تاجينا إن شاء الله بإذن الله الكريم ولا صعد وفود دان صوته وسير دمنا وكوفر وسير أود لهم مكان مجرته طبعا وسير دي وكويا اللي بعنا دي وكويا دبكين إياه وهي دبعت اسم صومرتين إن سونكو حل إياه دلكين أنا إن شاء الله دلكين الدفاع ذا كوفر قلبنا صاد وزن أنا الدولة نمدي نقرب استاكتا إياه معنا وفدقة ساكي صعنا أنا أسوأ سين ميلين حقوق دي ميل أنصارنا وناقي ميل أنصارنا أنا تهين سمود صوت وس أنا اسمه تهين سمود علامة دي أو نسيهرنا أنا أنميل الأذان مداويت أنا وركي. إذا سؤال كلا ويبقى ميلك وهذا لي حلبان قاسم محمد أبو بكر أو أسون الشاقي إن إذا بدون لكفضو إذا ما سووا أمانك جدها ولا وين يوديجان الهوس كويان. أنا سنتين أمان العيدك ماشان سوي مالي وشغلاني سو قبتين مامور كدغمدا runaaantii degmadan waxaa ka dhacday dhibaato aad u fara badan dhibaatadaas oo ah ka hor imaanaysa xuquuqda aadanaha oo bini'aadamka looga xadgudbay marka hadda waxaan u imaanay wafdiga sharafta leh oo ka imaaday isugu jira xildhibaanadii wasiirada oo idin soo diray madaxweynaha cabdicasiis xasan maxamed lafti qaraan markuu arkay dhibaatada ka taagan degmada waxaa la go'aansaday in xalkeedii la raadiyo marka waxa wafdigan oo ma idin qabanaya wax kala ma ahan sidii idinka dhigi lahaa ciidan qaran oo wadanka u shaqeeya idinkaga saari lahaa qabyaalada iyo qabiilka si degmadiina aad u hormarisaan dhanka caafimaadka dhanka waxbarashada aad u difaacdaan aad ka difaacdaan cadawga guud ee aad leedihiin idinkana aad iswaraasitaan oo aad hal hadaf yeelataan marka waxaa idinka codsanayaa in aad u fududaysaan shaqada wafdiga u yimid taasoo ah in ay sameeyaan ciidamo la wareega amniga kuwaasoo ka tirsan daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya akadaboytiya munaasabadaasi way baa ku hadlay wasiirka amniga gudaha Isaaq al-Subag oo sheegay
ini geeka lagu bilaabo iyin ciidamo ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka waana lagu fado yaari ini sugan gudaha degmadu amaanshe iyo deegaanada hoos kooyaan waana lagu fado iniyo si daacad ah bulshadu aan ka shaqeeyaan degmooyin badan oo koonfur galbeed ka tirsan yaa ciidamo oo deegaan ah oo leero daraawiishta koonfur galbeed inta ku qaasuubi oo hadana jaraan ku horgalayaan oo degmadu walaweyn lagu tago degmada ka dhow oo kiigto gobolka Baaji Buurakabo ciidamo oo islaamada oo deegaan ah oo daraawiishta aro leesuubi oo tali urule awaan duulule oo suwaayay amniga oo degmada deegaanka ciidamada militariga yoon amniga suwaayaan laakiin magaalada Banaanshe idaafoshe iyo hooliyo badanta amniga gudaha sugoosho isnisin ku faday maybe waa hortaan isal gaanteen sanargahayna ciidamo oo abaabulun oo hab beelad abaabulun haytaan laakiin lagu bilaabo geeka walsan qarameeye meetina ciidamada daraawiishta degmada walaweyn ka koonfur galbeed Soomaaliya bilaabo saadum wali tale daraawiishta gudaha rooga ifadana intii oo system kala dhiso way kala ku dhiman lahabay tamiska toosriidin arago hayno ciidan oo lamba darka goonay wadu ilaahay ayaa mu hadda ma qorsheeyaan intii oo uniform la sinjaan darka ciidan la sinjaan si diiwaan gali oo bar la sinsuubi qudimna taliska la sindis guud ahaan wasiire iyo saraakiil shirkadisan ka sugan degmada walaweyn yaa anjeediyo ata sidii lan halahay guud ahaan deegaanka walaweyn ammaan buu oo bulshada kanoolada korta markii kula saleedi yaa wasiire iyo wasiir ku-xigeenada xildhibaanada dareer dheer ka marayna jirtaha marow degmada walaweyn taas oo hadhawaayeen bulshada shirkadisan ka dhagan degmada walaweyn Abshir Maxamed Nuur KGS TV degmada walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose